السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة maalinimo Arbacada 8 bisha Oktoobar media uga barateen inuu idin soo gudbiyo wararkii warbixinada ka dhaca dunida kuwooda ugu xiisaha weyn. Maanta waxaan haynaa la taliyaha wasaaradda caafimaadka ayaa waxa uu sheegay in cudurka COVID-19 kiisaskiisii ay hoos u dhac ku yimaadeen, isagoo sheegay 24 saac la soo dhaafay in laga helay 13 qof. garsoorayaal cusub oo la magacaabay iyadoo ay horay shaqada looga eriyay in ka badan 20 garsoore ayaa hadda waxaa la magacaabaa leeyahay garsoorayaal cusub. waxaanu kaloo idiin haynaa wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa waxaa la sheegayaa inuu ku soo laabtay deegaamo ka agdhow Buulaxaawo, isagoo la sheegayay inuu ka yimid dhanka iyo Kenya. fadlan haddii tahay daawada markii kuugu horeysay channelka subscribe saar gambaleelkana furo si aad noola socotid adigoo mahadsan. haddaba daawadayaal sidaanu sheegno warkeena waxaanu ku bilaabeynaa la taliyaha wasaaradda caafimaadka Dr. Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in kiisaska COVID-19 ee guud ahaan dalka laga helay ayuu in tirada hoos u dhaceysay, isagoo sheegay 24 saac oo ugu dambeysay in la helay ayuu yiri guud ahaan dalka 13 qof, taasoo ka dhigaysa xaaladda inuu halkaasi ay ka muuqata inuu hoos u dhac u yimi amaba la xakameeyay ayuu yiri, isagoo u hambalyeynaya dhammaan shaqaalaha ama bahda caafimaadka una yiri waa in la sii laabaa shaqada aynu wadno iyo dadaalka aynu ku jirno. iyo isagoo dhanka kalena kala hadlay bulshada wacyigelinta. dhakhtarkan oo u qaabilsan wasaaradda la talinta iyo dhinaca talooyinka iyo wacyigelinta bulshada ayaa waxa uu mar walba ku baraarujiyaa bulshada Soomaaliyeed inay qaataan talooyinka ay siinayso wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha caafimaadka, isaga oo yiri haddii la iskaashado sida uu hadda cudurka hoos ugu dhacay ayuu weligii hoos ugu sii soconaya ayuu yiri, oo la qaato talooyinka dowladda iyo hay'adaha caafimaadka. iyadoo aynu ognahay daawadayaal in dhowaan laga eriyay shaqada garsoorayaal ka badan 20 qof ayaa waxaa la soo sheegayaa in tiro garsoorayaal la magacaabay. haddaba garsoorayaasha la eriyay ayaa waxa ay ahaayeen oo isugu jireen kuwa xilal sare haya iyo kuwa aan xilal hayn. waxaa ka mid ahaa garsoorayaasha shaqada laga eriyay tan iyo intii uu Farmaajo xilka qabtay, gudoomiyihii ku-xigeenkii maxkamadda sare, gudoomiyihii maxkamadda gobolka Banaadir iyo gudoomiyihii racfaanka oo ahaa xubno sarsare. ayaa waxaa la soo sheegayaa in dhowaan la magacaabay 23 garsoorayaasha la magacaabay ayaa boosaska loo magacaabay waxaa ku jira ayaa la leeyahay qayb uu xilligii Xasan Sheekh uu shaqada ka eriyay oo banaanaa oo aan la buuxin ilaa iyo waqtigaasi, iyadoo hadda ay baahidu timi in la magacaabo dhammaan garsoorayaasha lana buuxiyo boosaska banaanaa. waxaanu idiin haynaa oo kala daawadayaal wasiirka amniga ee Jubbaland ayaa waxaa la soo sheegayaa inuu ku soo laabtay deegaamo ka agdhow Buulaxaawo, iyadoo la leeyahay wasiirkan waxa uu ka yimid dhinaca iyo Kenya amaba magaalada Nairobi, isaga oo la sheegay in la soo siiyay xoogaa hub ah iyo saanad ayaa waxaa la dareemayay inuu halkaasi ka wado dhaqdhaqaaq military, iyadoo magaalada Baladxaawo laga maqlayay rasaas taasoo lagu micneeyay dabrid amaba lagu micneeyay wax loo sheegay dhoolatus ayay leeyihiin dadka deegaanka, oo uu muujinayo in Cabdirashiid Janan uu soo rogaal celiyay isagoo halkaasi ku soo urursanaya ciidamo hor leh. waxaa laga cabsi qabaa deegaanadan oo muddo nabdoonaa inay ku soo laabtaan colaado, taasoo horay uga dhacay dagaalo aad u qaraar oo dowladda Jubbaland ay iyadu mar walba horseedisay dhibaatooyinka. haddaan wararka dibadda u galno, Francina Kabuka oo ahaa ninkii loo haystay xasuuqii faraha badnaa ee ka dhacay Rwanda iyo Burundi ayaa waxaa la soo sheegayaa dhowaan isagoo lagu qabtay dalka Faransiiska inay shalay dowladda Faransiiska ay shaacisay inay ninkaasi u gacan gelin doonaan maxkamadda caalamiga ee Hague ee ICJ ee fadhigeedu yahay Netherland. waxaan kaloo idiin haynaa daawadayaal dalka Masar ayaa waxa ay hay'aduhu ku eedeysay in uu iska indhasaabaya amaba uu faraha ka qaaday faafitaanka cudurka pandemic, taasoo loo eedeynaya ayaa la leeyahay Masar inay ku doonayso inay ku hesho dhaqaale fara badan. hay-adaha caafimaadka ee dunida ayaa waxa ay Masar ku eedeynayaan sida ay uga gaabisay amaba ay isaga indha tirtay in ay la dagaalanto cudurkan COVID-19 oo dhammaan dunida intooda badni lockdown ku jira. ayaa masaaridu waxaad moodaa inay arrinkan faraha ka qaadeen. waxaanu kaloo idiin haynaa daawadayaal
magaalada Minneapolis waxaa ka socda dibadbaxyo aad u xoogan iyadoo booliska magaaladaasi ay adeegsanayaan sunta dadka ka ilmeysiisa ayagu waxay isku dayaan inay kala eriyaan dad gaaraya kumanaan oo ilaa habeenkii xalay ahaa halkaasi ka banaan baxay taasoo sababtay markii loo geystay dil nin madow ah oo dhalinyaro ah oo si bareera loogu dilay magaalada bartankeeda oo uu dilay nin boolis oo cadaan ah haddaba tanaa waxay dhalisay dibadbaxyo aan kala go' lahayn daawadayaal waa Bolmog Media tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh fadlan ha ka maqnaan janalka kuna xirno mar walba iyo goor